الله وبركاته أحباب الإسلام وعليكم السلام من والبقى دليل كدبتا وولا شيء سارة عبد الكريم waxaan idiin soo gudbinayaa fariin ka socoto dumarka muuminiinta ah sideen janno u helaan walaashayeen aag amiirul muuminiin wuxuu leeyahay dharka ugu quruxda badan ee adduunka ku sugan waa xishoodka walaashayda muslimada ahayd quruxdaada waa xishood suurtagal ma ahan walaal inaad sheegato dhowrsanaan xishood la'aan xishoodku waa dariiqa loo maro dhowrsanaanta xishoodku waa inuu soo hoosgalaa dhammaan dhaqankaaga walaal inaad ku hadasho xishood ku socotaa xishood ku raacdaa xishood ku fadhiisata xishood waa inaad wax u egtaa si xishood leh walaashayda muslimada ahayd yaqiinsano inay geerida imaanayso xasuusta walaal madowga qabriga iyo wehel la'aantiisa camalkaaga ayaa wehel kuu noqonaya walaal wanaaji camalkaaga haddaba si aad u hesho wehel wanaagsan oo janno kusii sugto sameey camalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo noo sheegay haddii aan suubino inaan janno ku heleno camaladaasna waxaa ka mid ah shantaas salaadood inaad tukato zawjkaaga oo adeecdo xumaanta aad ka dheeraato bisha ramadaan aad soomto haddii aad suubisid walaashayda muslimada ahayd afartan shay waxaad jannada ka galaysaa albaabka aad doontid haddaba walaashayda qaaliga ahayd ha isdhiganin aad ayay u fudud yihiin arrimahaas daal maxaa yeelay jannada wax yar ma ahan walaal saamee naftaada intaan saameynin oo u sii horumarso aakhiradaada wanaag kuna dadaal salaamdaada salaamu ullaahi calaykum waraxmatullah أنت كمثل النجم في لمعان